السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات وبرنامجكي كرشدة عذر كاغو وقوشة عافمات كاغا مركا وحانو كويغينا مانتا سؤال ورانيسا شيخ أنيغا ما إسداوين كراه qofku wuxuu qabaa oo lagu sheegay cuduradan sixirka isha jinka waxyaalahaas lagu sheegay marka wuxuu leeyahay saa'ilku anigu ma isdaaweyn karaa jawaabtu waxa weeyaan haa maya su'aalo badan oo waxa jira jawaabtooda ay noqonayso haa ama maya waxaan soo leeyahay system kan cilaajintu waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo soo dajiyay inoona banaan inaan isku cilaajino haddana u baahan cilmi iyo aqoon in la isku daaweeyo tusaale ahaan sixirkan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii loo sameeyay waxaa loo soo adeejiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo soo diray dhaqaatiir information dhakhtarku wuxuu ku siiyaa information markuu ku siiyo daawadina uu ku sheego sidan yeel sidan ha yeelin sidan ha yeelin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'iktu uu soo diray ee labada dhinac kala fariistay waxay siiyaan information kaas oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallamna uu ku dhaqaaqay markiiba khatiir baa loo soo diray suurado quraan ah ayaa lagu daaweeyay sidaa dheh qul a'uudu birabbil falaq akhri wuxuu helay gurmad ka baxsan asaga ayuu helay sidina uu Ilaahay baa ku caafiyay adiga marka waxaad u baahan tahay inaad hesho qof kugu dhaamo barnaamijkan systemkan qof kugu dhaamo inaad hesho oo aqoon u leh isma daaweyn kartid marka adiga adkaartii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu inoo soo dajiyay waad akhrin kartaa waad akhrisan kartaa aayadihii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isku daaweeyna waad isku daaweyn kartaa oo waad akhrisan kartaa balse hadduu xanuunka weynaado oo sixir la sameeyay oo waliba si tadawuray oo qaab casri ah loo sameeyay markii saameyn uu kugu yeesho jiman laga adeejiyo isma control kartid isma daaweyn kartid xanuunkaaga haduu yahay xanuun iska yar il iyo waxyaalo la mid ah ay yihiin sixir iska yar uu yahay adkaartaas iyo quraankaas inaad akhristo isku controlsho waad sameyn kartaa waa isku daaweyn kartaa laakiin wixii markay noqdaan wax aad u dhib badan oo adag adigiba aadan awoodin inaad quraan akhrisaba lagu diiday salaada jimcaha markii uu sheekhu khudbada u akhrinayo aad iska seexanaysid masaajid cibaado dhan lagu diido awood uma yeelan kartid aad isku cilaajiso oo isku daaweysa adiga awood uma yeelan kartid waxaad u baahan tahay inaad hesho qof qeyrka ah garanayana ciladaha ku haysto oo dhan si qoto dheerna ku daaweeyo ku cilaajiyo u baahanaysaa khiyaali lama rabo nafta khiyaaliga ka saar caafimaadku khiyaali ma galo qofka ku cilaajinayna oo ku daaweynayna ma ahan arintiisu inay noqoto khiyaali adiguna khiyaali ha samee caafimaadku ma ahan waxyaalaha galo khiyaali markaan idin leeyahay waxa weeyaan qofba wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu sixir qabo inuu jin qabo inuu maartay buu iska dhaadhicinaya waaba iska dhaadhiciiba wadaad buu tagay sidoo kale waxa leeyahay waa qabtaabaniyo waa khiyaali khiyaali lagu fasiray buu noqonayaa marka waxaad u baahan tahay
in haddii xaaladaadu ay tahay xaalad adag oo aad dareemi karto qof weyn cudurkiisa waa dareemaya inaad hesho qof ku cilaajiya ku daaweeya si qoto dheer ku daaweeyo haddii laakiin waxay iska yaryar ay yihiin inaad iska difaacdo adkaartii laasimto aayadihii quraanka laasimto cibaadada laasimto marka hore aad iska difaacdo haddii wixii ay ku soo asiibaana markiiba inaad suuratul baqara laasimtid adkaartii laasimtid cibaadada ku orodid waad kaga caafimaadaysaa insha Allah ta'ala balse ha is dhiganin haddii xanuunkii uu sii weynaado wad aragto adigoo awoodi la inaad wax akhriso adigoo awoodi la inaad quraan isku akhriso adigoo maartay awoodi la in shaqo qabsato ha isku eeganin xanuunka la aad dadka kale barnaamijkaasi garanaya dhakhtarku hadduu xanuunsado wuxuu la tashadaa dhakhaatiir kale oo uu aadaa marka jawaabtaas su'aashaasi inahaas ayaan ku soo gaabinayaa waxa ay daba taala marka su'aashaas jawaabteeda qodob digniin ah oo naga digayo walaalaha muslimiinta ah digniintaas waxa weeyaan walaal haddii aad xanuunsan tahay xanuunadan aad isku ogtahay xanuunadan sixirka isha jinka waxyaalaha la midka ah masiga la isku yiraahdo haddii aad isku ogtahay gaari adiga oo kaxaynayo oo highway-ga saaran quraan hashidani halis weeyaan waa halis quraan hashidani adigoo kaliya guriga joogo sidoo kale quraanka hashidani maahan anigu quraan miyaan la shidan inaan leeyahay laakiin dhinaca caafimaadka ayaan ka hadlayaa iyo qatarta qofka ay gelin karaan shayaadiintu dhibaatada ay u keeni karaan maxaa yeelay qofkaas wadada weyn hayo waanu aragnay ciladaas maahan waa wax aan si practical ah u aragnay waxa aan idinkaga digayo in idin la wadaagayo isagoo highway hayo ayuu quraan shidanaya aayadihii مثلا sixir buu qabaa aayadihii sixirku quraanka soo maraya ilaa quraankii oo dhan is wareejinaysa cajaladu ayuu break qabtay sixirkii wixii baa ku soo dagay xanuunkii baa qabtay waqtiba waa istaagtay check accident faarin dhacday ama wayba kala baxayaan wadooyinka kala baxayaan guriga adoo ku dhex jiro haddii aad shidato quraankii xanuunkiina aad isku ogtahay kaligaana aad tahay wax ku saacideeyana aadan haysan waxa halis ah inuu daaqada ka tuuro dabaqa inuu ka tuuro halis ah goob joog ayaan wahay annaga ayaa aragnay sheekaygu ma aha marka inuu dabaqa ka tuurayo arrin aniga sheekaygu ah ma ahan waa arrin aan u arkay si practical aan u arkay weeyaan waana arrin halisteeda leh that is why aan idin la wadaagayo information-kaas digniinta ah inaad iska ilaalisaan adinkoo gurigiina joogo in aad quraanka cilaajka shidataan adinkoo cidna aysan idin la joogin aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la socda barnaamijyada kale